safarka iyagu waxa weeye in aan idin dhiirigelino inaan idin la shaqeyno inaan odayaasha dhaqanka idin la tagno duubabka ay arrimahan ka go'aan inaan idin la tagno ayaga laftirkooda aan idin kala hadalno aan tusno awoodiina waxa ogtiin haweenka Soomaaliyeed inay yihiin dad aad u karti badan waxa ogtiin in xaalado tiro badan oo dalkan ku jiray 35 sano ee burburka ay ka soo gudbeen waxa ogtiin inay yihiin dadkii lagu baxsaday 30 sano oo dalka burburka jiray oo dawlad la'aan ka jirtay oo dhaqaale la'aan jirtay dadkii lagu baxsaday inay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa saaran mas'uulka ragga saaran yahay mid ka daran sababtoo mubarrabiyo waa barbaariso waa hooyadii wax barbaarinaysi waa hooyadii bulshada waa dhabarkii bulshada marka waa inay golaha deegaanka iyo siyaasadda waddanka iyo siyaasadda gobolka ay ka muuqdaan si gaar ah u muuqdaan si aad u barkaartiin oo garabkiisa u istaagta ragga anigu waxaan aaminsanahay awoodda dumarka ma aha mid la soo koobi karo kaliya waxaa 10 noogu filan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala awoodna siiyay inaanu 9 bilood ilma caroosha aan ku wadno bal awoodda bal eega oo aanu dhalno taa waa wax dheeraad rag aan dheernahay ma aha inaan rag ka wanaagsan ama ka xunnahay laakiin waa awood dheeraad Ilaahay na siiyay awoodin inaan isticmaalno wadankeena ku dhisano shacabkeena soo keenno raggeena garabkooda istaagno marka waxaan jeclaan lahaa aniga gaar ahaan aniga oo wasiirka wasaaradda haweenka ku-xigeenkiisa ah gabdhaha kala garabka ay taagan yihiin waxaanu rabnaa oo aanu jecelnahay in gabdhaha baran iyo gabdhaha sanaag ay ka muuqdaan golaha deegaanka xumaatay hablo xaalka ma galin qabyaaladii way xaleen xanaanada ubadka iyo xurmada waayeelka xamle culus bay sidaan dumarku xaquuqal insaanka iyo xafiisyada dawladda xaqooda inay helaan maxaa tirahdeen xaqa iyaga aan helo haddaase taariikh la soo maray masala ka dayo aadanoo madii waatuu malkeeda tayimi mawlahay weydiisayo looga yeel maqbuul riyuugu marsanaaye ma loo makimay xawa midig joogta waatu markaa ku kacay malaa'igta eebbe waatay u meheriyeen ilaa maantaana ragga uma taansanayn haween waa xubin muhiim aan markhaanti rabin waa man laga beermoyo meris laga tarmaa waa muraayadii raggiyo munadii gurya miray dhaliyaan oo maskax bay barbaariyaan ma dhaafaan inay yihiin waa ka muuqataa bulshana kama maaranto maamulka ma tagana adduunka mudnaasho magac bay ku leeyihiin qaaradaha kale haween qaalibayiin qorshaha guud dumarku qayb bay ku leeyihiin annana qoonkaan ay waana quursadaan